السلام عليكم. انت عن بلاون موضوعي كمان سؤال باني ودينا يا قف والبنا سؤال شان أن إدي ودينا قف والبو أذي إسودين سؤال شسنو حاواي عذر كيبا حاجة وقع بسببن هذا عذر لكوجو شيء كيبا وقع بسببن تهاي لكوجو شيء قف والبو أذي إسودين ما حجوامي أذي إسودين muhiim waay in qof kasta asi isweydiiyo cudur lagugu sheego keebaad ugu cabsi badan tahay mujeedaan meeshan waxa ku qoran cancer yaa ka cabsada kansarka badankeena inaan sheegno xataa ma jeclin أول كأمس ما حنقول شيء كن وحاس عن إحنا تختار كن لهذا حتى وحاجة وحلا الله وحبا نسكو عكاي لكن تختار كمرة وين هذا أو وايو إن كين يقول شيء عنك عبسنا يا سكين إن لو يقول شيء أياتك عبسنا سا تاسنو وحكي أنت تذكرنا إن أود إنتان hebel waa lagu sheegay laba bil kadib uu dhintay heblaayki waa lagu sheegay oo dhimad taas keenaysa aad uga cabsana horta ma ahan kaliya waxaana ku saabsan Soomaalideena wad adduunka guud waa la ka baqaa kansarka arimaana keena looga baqo laakiin samaanta mawduuceenu waa kansarka oo la ka baqo waxaan ka hadlaynaa kansarku muxuu yahay maxaa sababa sidoo kala baxaa iyo ugu dambeyntii ma la daaweyn karaa kansarka haddii si hordhac idinkaga jawaabo su'aashaasna waa haa maya kansarka waa la daaweyn karaa mana la daaweyn karo taasee ku dhacday dib baan ka sheegi doonaa bacda qadarullah iyo bacda takhtarka ku daaweyn lahayd qofka loodka ku leh in cudurkaaga la daaweyn karo in kale waa adiga taasna waxaan ka wado dib ayaan ugu soo noqonaynaa marka si fiican loo dhageysto insha Allah magacayga waan Asteexa Cabdullaahi waxaan dhigtaa dhakhtarnimo sanadka shanaad insha Allah waxaan jeclahay inaan ku takhasuso ama waxaan ku hanweynahay inaan ku takhasuso cudurrada dumarka iyo cudurrada la xiriira uurka insha Allah saan hore u sheegay kansarkan ka hadli doona maanta magacayga waan Asteexa hada u sheegay hataa waxaan ka hadli doonaa kansarka muxuu yahay maxaa sababa iyo noocyada uu kala baxo kansarka noocyo badan buu u kala baxaa laakiin saddexan soo qaatay insha Allah saddexdaasna waxa u kala dhigmaan saddex qayb oo kansarka loo kala yaqaano iyo ugu dambeynta daaweynta kansarka qofkan waa qof kansar qaba waa qof dumar waxaa ka yaabaa in arki karin dumar inay tahay sababta tinti baa ka haaday wadankan ku noolnahay Denmark waxaa ku nool 250 qofood oo kansarka qabo 250,000 oo qofood waa milyan rubuciisa sanad walbana waxaa lagu sheegaa 37 ilaa 36,000 oo qofood oo cusub oo kansarkan ku dhaco waa wax sii siyaadayo sanad walba intii hore u dhacday ka badan ayaa sanad walba ku dhacdo kansarkana uguma dhaco qofka caruurta buu ku dhacaa kansarka hadaan sheegna kansarka wuxuu yahay waa dib inaan ugu noqono jirkeena unugyadiisa jirkeena unugyada daanishka ama ingiriiska waxaa lagu dhahaa cell unug jirkeena unugyo badan buu ka samaysan yahay unug walbana shaqo gooni buu leeyahay saad arkaysaan hada keliyaha unugyadooda si qaab gooni u samaysan yihiin beerka unugyadiisa si kale unug walba shaqo gooni buu leeyahay iyo xuduud laakiin kulligood waxay wada leeyihiin hal DNA waa maqashaan qofkan DNA-giisa waa qof gooni u ah so unugyadaada dhan iyagoo kala duwan hal wax bay wala leeyihiin oo ah waa hal DNA unug
walbana xuduudiisa xataa wuxuu ku xiran tahay ilaa intuu noolaanayo unug walba waqti buu jirayaa waqtigaas kadibna wuu dhimanayaa ama wuu isdilayaa laakiinse intuun isdilin wuu kala qaybsamayaa sida farac oo kale wuu isqaybinayaa sida oo booski oo lahay wax kale u qaataan sida macindirteen oo kale 3 maalin buu soo cusboonaysiisaa dhiig oo kale waxaa la ogaaday 120 maalmoodba unugyada dhiiga way isbedelaan wax mar walba dhaca laakiin aan dareemin saan sheegnana unugu koow hal waaye wuu isqaybinayaa isqaybintaana waxaan ahaa DNA-ga waa inay isku midki ahaato sastarta DNA-ga copy ba sameynaysaa copy-kaas oo sameysmaya marka waxaa dhacma marka qaarkood qalad inuu dhaco oo unugi qalad dhaco jirka marka waxyaalo badan oo qaladkaas ku saxa ayaa jirta laakiin marka qaarkood waxaa dhacaysa jirka inuu sixi waaye qaladkii dhacay marka unug waxaa soo baxaya DNA-ga ka duwan jirkii DNA-giisa kale taas markay dhacdo unugyo kala jiro jirka ilaalinayo mar walba sida police oo kale oo ilaalinayo jirka DNA-giisa inuu jiro in kale marka qaarkood hadii la marka oo unugyadaas arkaan unug DNA ma ahna DNA kale leh waxa la isdil unugu wuu isdilayaa laakiinse unugyo qaarkood qalad waxaa ka dhacaya awoodii isku dili lahaayeen ayaa ka tagayo maadaama qaladkan u dhacay saakan unugyadan waa unugyada normalka mid baa jiro oo ka duwan marka midkan ka duwanna muusan joogi lahayn hadduu awoodi lahaa inuu isdilo marka ma isdili karo laakiin weli wuu isqaybin karaa markii halkii unug lagu buu noqonaya labadii 4 bay noqonayaan 4tii 8 bay noqonayaan laakiin qaladkii bay weli wataan saasay isku weynanayaan buro kale sameynayaan oo meeshii sida xuduudi meesha xuduud kale ka imaanaysa laakiin sida isku qaybin jireen qaladkii oo hore u dhici jirin uu dhacayaa wuu sida qaladkii laakiin isma sixi karo wuu sii badanaya marka waxaa dhacaysa wax kansar ah way adagtahay sida loo fahmo laakiinse waa inaa ogaatid maaha wax dibadda kaaga imaaday ee waa jirkaaga qalad uu sameeyay qaladkaas markuu sii weynaanaya ugu dambeyntii dhiiga meeshan geesku waa xididka dhiiga maraya kansarkii ama buradii dhiigii bay sii galaysaa oo way sii faafaysaa saaragna meeshan dhiigii buu kansarka tagay saarkaysa burada way weynaatay dhiigii bay tagtay dhiigina jirka ku sii faafay ama qanjirada xataa wuu ku faafaa kansarka cudurada dumarka marka example-kan soo qaatay wuxuu ku saabsan tahay xubinkan oo ah xubinka taranka dumarka 3 kansar kala duwan oo ku kala dhaco ayaan sharaxayaa kansar ku dhaco minka kansar ku dhaco afka minka iyo kansar ku dhaco xubnaha oo ukumahaynta marka ragga jira la ka yaabo inay inta fadhiyaan oo dhan anigu igu yaalo xoog taranka dumarka ani waxaan ima qusayaan laakiin soo ku qusayaan sababta 3dan kala duwan oo kansarka waxay kala qaabilsan yihiin 3 nooc oo kansarka u kala baxo waa nooc calaamad leh kansarka marka dumarkii dhageysta si fiican si dhageysta hadhow calaamad markaa sheegaya laakiin markana ogaada meel kale oo idinka xataa nigu yeesho kansarka kasoo matal qaata marka kansar kan mid waa mid calaamad leh oo calaamad lagu fahmo lah midna waa calaamad oo lagu fahmo ma lahan laakiin baaritaan baa jiro la sameyn karo screening wax la dhaho baaritaan guud oo dad caafimaad qaba la baari karo oo lagu ogaan karo inay dadkan halis ugu leeyihiin in kansarkan ku dhaco in kale sida oo waqti yar looga gaaro midka saddexaadna waa mid oosan lahayn calaamad lagu fahmo oosan lahayn baaritaan guud qofkii intuu caafimaad qabo lagu fahmi karo oo ah mid oo marow qofkii kansarka ku weynaado oo halis ku noqdo kaliya loogu ogaan karo kansarka 3daas oo kala baxa mid calaamad leh mid aan calaamad lahayn laakiin se hore loo sii ogaan karo iyo mid hore loo sii ogaan karin calaamadna lahayn kan ugu horeeyo waxaan ka soo qaadayaa metal kansar ku dhacay minka caafimaad qabo kana minkii oo buro ku dhacday ama kansar ku dhacay
كمد يهاي مد علامات له كانسر كان سنة تدوق اللي كنت غفوت دنمارك أو قدعة بقول كي بزدت نشان وحكول عادو مركو أو دلماذا كتكتي عادة كتكتي كان علامة دولية هاي صوت علامة تسنو ديك قف قدو مركي أو عادة كتكتي أو ديك سوارك توا علامة ديسة كانسر إنه كانسر كجورة لكن مرة بالكانسر معها مرك أخذ برا عادي أو مرق نوين قكر تعمل كحال سمية بايوبسي وحده برودي واحد كسوق على ولا بارا إنه يحي كانسر أم إنه سنهين بدنا لو ما دلتو هاد كانسر كمينكا صوتها علامة بولي هاي ديك قف دمر كيسكو عرفتي إذا ديك سجينين تختار كي تكتي ولا بارا ولا قاعد ساسترت الدنمارك لو ما دلتو يعني ولي مرين قف كي تختار كو تجي قف كيسكو عرفتي ولكن تختار كو تجي ودي منايا dadkeena saasi u badan yihiin kana waa min afka minka oo kansar ku dhacay kan waa taadhana calaamad ma lahan wuxuu ka mid taalayaa kansarka qaarkiisa calaamad lahayn laakiin screening leh waxyaalo dad caafimaad qaba loo sameyn karo si loo ogaado qofkan halis inuu yahay inuu kansarkan ku dhaco ama in kale screening kaas markuu waa dumarka 23 jir ilaa 55 jir boostada daanafka sayskaga fikirayaan boostada kugu soo dirayaan oo dhahayaan dhakhtarkaaga u tag waxaa la gaaray waqtigii aad isa soo baari lahayd 3 sanaba qofka boostada loogu soo diraa hada example kala qaadana sida macindhirta kansarka ku dhaco nimanku aad ugu dhaca qofka 55 markuu gaaro boostada macala waxaa loogu dhakhtarka xitaa tagmaa caagad yar loogu soo diraya boostada oo la dhahayo saxaraytu ku shub dhakhtarkaaga u gee waxaa laga baaraa dhiig inuu ku jiro saxaradaada taasna calaamad waxay u leedahay inuu halis ugu tahay inaad qabti kansarka macindhirta sidaas oo kale screening jiro xataa kansarka oo ku dhaco naasaha qofka dumarka waxaa la dhahayaa dhakhtarka tag isu soo baar screening waxaa laga baarayaa inuu kansarka ku dhaco waxaa laga yaabaa qofkii hal mar inuu tago dhawaaba tagay wax ma igu sheeginay muxuu mar labaad igu soo diray waxa waaye waa mar walba in la kula socdo inuu kugu dhacay kale kansarkan hadaa fiirsan kii hadaa waxa dad badan Denmark uma dhintaan laakiin sakan 400 sanad qofkii ku dhacaa 88% boqolkiiba 88 ayaa sanad gudihiisa noolaata taas waxay sheegaysaa boqolkiiba 12 qofood sanadka ugu horeeyay gudaheeda ku dhintaan waa maxay had 8 qofood boqof bilooyinka lagu sheegay kadib oo ku dhimanaya sadadkaas waa sababta calaamad hadoosan lahayn qofkii dhakhtarku u tagin marka lagu ogaa soo halisa lagu ogaanaya 22% waxay dhimanayaan 5 sano ugu horeeyay taas waxa waa sanadka koowaad hada 8 mid uu dhintay 7 soo hartay maxay 5 mid asii dhimanaya sababta wuu ku sii faafay taas waxay tusay kii hore calaamadii lahayd kana ka halisan oo dad ka badan u sii dhintaan kana waxa ka sii daran kansarka ku dhaco ukumaha sababta kansarkan wax lagu ogaan karo ma leh oo qofka la dhahayo waxa sar kugu sii baara qofkii caafimaad qabo so qofkan wuxuu is ogaanaa leh maray weynaatay oo kansarka ku faafay taasna waxaa laga arkaa xataa dadka si ugu dhintaan afarkiiba qof lagu sheego bilooyin gudahooda ku dhintaan waxaan waa daanishku waxaan sheegayna maaha Soomaalida waa guud ahaan dadka dhakhtarka tago mar walba is ogaado mar walba is baaro ayaa 4 qofood oo lagu sheego kansarkan uu dhimanayaan boqolkiiba 65 sano ugu horeeyay oo dhimanayaan tan wuxuu ku sii halista kansarka leeyahay hadoo mar faafo laashana kansarkan wuxuu matalayaa kansarka calaamada lahayn wax screening oo baaritaan hordhacne loo sameyn karin marka intaan waa hordhacay ahayd ama faahfaahin oo ku saabsan kansarka laakiin mar walba mid la isweydiinayo tii hore xataa ahayd ma la daaweyn karaa kansarka sababtoo dad badan oo dhintaan waa taana jawaabta ahayd haa maya laakiin intaan tagin ka hor jawaabtaas waxaan ka hadlaynaa wax la dhaho Kraftpaga wadankan ku noolna waxa jira la dhaho Kraftpaga
oo ah takhtarkaaga hadaa wax isku aragtay calaamado takhtarkaaga u tagtid xaq baa u leedahay takhtarkaas haddoo kugu arka sidoo kale hadaa qof sigaar cawi jirta tahay 40 sano dhaaftay qufac saa'id isku aragtay takhtarkaaga u tagtid calaamadahaas waxaa la imaatay calaamada kansarka sanbabaha oo kale xaq waxa u leedahay marka takhtarkaaga 48 saacadood gudahood waa 2 maalin gudahooda takhtarkaan inuu ku gudbiyo isbitaalka oo lagu baaro baaritaankaas kadibna waxaa u leedahay xaq week gudihiisa in lagu siiyo jawaab cudurka la qabtid waaga maalinta takhtarka koo u tagtay ilaa maalinta oo lagu daaweyn lahayna waxa xaq u leedahay inay bil dhaafin bil gudaheed xaq waxa u leedahay in isbitaalka lagu gudbiyo lagu baaro intaas iskaan kala duwan lagu marina intaas dhiigaga lagu kala qaada intaas specialist arkaysa iyo in oo daawadii ama operation ka ama wixii gash xaquuqdaas leedahay tan waxay keentaa isbitaalada waa jooga cudurada kala dhan dib baa loo dhigayaa sababtoo ah sida lagu xaqaaga u leedahay lagu sameeyo aad baa loogu taxadira taas kadib hal takhtar ma go'aaminayo daawada lagu siinayo wax baa jira la dhaho multidisciplinary team oo ah adigaas kaliya oo takhtarka u imaatay scanning lagu saaray intaas takhtar kala duwan ayaa isla wada fadhiisanaya qalbi fadhiisanayaan mid muxuu matalayaa waa takhtarkii hada beerka oo kale haduu ku saabsan yahay takhtarka cudurada beerka oo qaabilsan ama laba takhtar oo qaabilsan cudurada beerka ayaa meesha fadhiya iyagu bas ma fadhiyaan waxaa fadhiya kii qali lahaay waxaa fadhiyo kii raajiya takhtarka raajida ku takhasusay oo kala yaqaan raajida si kaasna wuu fadhiyaa waxaa fadhiyo kii unugyada baaraya takhtarka oo unugyaalka soo qaaday kii baarayna wuu fadhiyaa waxaa fadhida xataa takhtariintaas dhan wada fadhiyaan 5-6 takhtar laguma aaminayo waxay ku aamiyeen xataa inay sii gudbiyaan secretary way fadhidaa oo waxay dadkan ka hadlayaan qorayso intaasoo takhtar waxay u fadhidaa kaliya adiga in lagu siiyo daaweyntu kugu haboon intaasoo qofooda fadhida intaasna xaq waxa u leedahay week gudihiisa inay jawaab ku imaadaan waa wax aad loogu dadaalay laakiin nasiib daradan takhtarka koowaad buu tagno intaan anan maxay noogu fadhiisanayaan meel nasiib daro waa walaahe kansarka marka daaweyntiisa mid ugu fiican waa in la kaa gooyo saan sheegna kansarka waa buro tii hadaan sheegayna ilaa meelahan dhan markay joogto waxa la sameeynaa waa la gooynayaa intoona faafin khatar wuxuu noqonayaa marka uu tago dhiiga oo dhiiga raaco sababtoo ah meel kale uu sii faafaya marka dhiiga taga xataa waa la gooyaa laakiinse jirka intiisa kalena u faafiso gooyintaas wuu ku caawinaa laakiinse waxay ka fiicnaan iyadoosan faafin la kaa gooyo kansarka badanaa waa la gooyaa goysmadan waxay ku xirantahay ilaa intuu gaaray hadda saan sheegayna minka hadduu ahaay kansarkiisa minkiyaa la gooynaa laakiin saan sheegna ukumahaynta kansarka markuu ku dhaco waagan baa la arkaa saas darteed waxaa laga baqayaa inuu faahfaafay ukumahaynta keliyaba la gooynaayo oo minki iyo tuumbadii wixii dhan iyo qanjirada agyaali wixii oo dhan baa la gooynayaa sababtoo ah waxaa laga baqayaa inuu kansarka sii gaaray kan ma sheegi kartaa waxaan wuxuu yahay waa ukumahaynta hadaayse arkaysa yariista ahayd ukumahaynta waxaa la dhahaa waa tan yariistaan waxay la eg tahay olivianka ma taqanin olivianka yariiska ah bay la eg tahay laakiin qofkan inay ku weynaatay kansar ku noqotay gacanta mujeedin takhtarka qalaya gacantiisa intaas waay gacantiisa bay intaasoo jeer ay ku weynaatay qofkan qofka xitaa marka qaarkood waxay noqonaa inuu uur leeyahay oo kale soo u weynaatay kaliya markaas waxaa isweydiin leh calooshaada saa ma ahaan jirine maxaa ilaa intaan ku gaarsiin ilaa uur ay ka noqoto ukumahaynta laakiin way dhacdaa sababtoo ah dadka calaamadaha jirkooda u sheegaya xataa haddaysan ku dhaqaaqin waxyaalahan baa dhaco goysmada ahayd si kale loo daaweeyay kansarka waa chemotherapy mida la dhaho badanaana marka aragnatada tinta ka
baxdo chemotherapy baa keena qofkaas dumarka dhiigeeda ayaa daawadan lagu shubaa oo isku dayaa inuu unugyada dilo saan sheegno kansarka waxa ugu roon waa in la gooyo markay inta gaarto sheekada dad badan baa u dhintay laakiinse waxay sameysaa waqtigoo dhimo lahayn bay sii fogeysaa si kale loo daaweeyo kansarka waa shucaac ama stqolotherapy marka shucaaca laba u baxaa mid oo sida qalitaanka u dhigmo oo inuu wixii uu meeshii waa lagu waayo oo kale shucaacaas dilaayo marka qaarkoodna waxaa loogu talagalay inuu qofka noloshiisa sii dheereeyo badanaa markuu jirku ku faafo meelaha oo tago waa lafaha oo qofkana markuu kansarka lafaha u gudbo xanuun saa'id ah ee qofku ku keenaysa lafihiisa dhan way baaba'ayaan markaas xitaa waxay saan asoo dhahayo laftu way jabaysaa xanuun saa'id bay dadku ku keentaa waa loo isticmaalaa xataa shucaacaas inuu xoogaa xanuunka ka yareeyo marka ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabeynayaa kansarku ma la daaweyn karaa jawaabtu waa haa maya in la daaweyn karo in kalena waxay kugu xiran tahay bacda allah adiga sababtoo ah mid calaamad baa isku aragtay waxa jirkaagu ku arki jirin baa isku aragtay dhakhtarka u tag halagu soo baara maaha mar walba wax isku aragtid inay kansar tahay alxamdulillah saas maaha laakiinse haddaa kansar qabtid oona la kaa baarin halis baa noloshaada gelis haddaa wax cusub isku aragtid qufac saa'id haddaa isku aragtid saxarada markasta isbabedelaysa haddaa isku aragtid dhiiggaa isku arki jira haddaa isku aragtid haddii wax kaasoo kuusan yihiin kiiladoo kale waxaad dareemaysaa kaasoo kuusan waxaa keelan kansar kiilada kaa gala oo soo baxay wax walbaa isku aragtid dhakhtarka tag lacag xataa kuguma fadhido isu soo baar mida kale kun waxaan kusoo tuurayo oo ah isu soo baar waqtigii waxaa la gaaray oo kansarkaas screening lakaa sameynayo tag dhakhtarka badanaa wax weyn maaha saxaragay ama maxay hade raajada oo naasaha sida dumarka oo kale u tag waxyaalahan waxaa waaye waa lagu caawinayaa kansarka intoona kugu faafin in lakaa arko maadaama calaamad adig ku arki kartid inaysan lahayn marka tambana waa dhakhtarka hala daahinin oo la tagtid assalaamu calaykum